kale isku soo noqod wacan aynu ku bilownay duqa magaalada Boorame oo ka hadlay weerar dhawaantan lagu soo qaaday. qodobkaasi waxay noo qaada dhigay wariyaha Yaasiin Cali Axmed Yaasiin Looye. duqa magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal Saleebaan Xasan Xadi ayaa si kulul uga hadlay maleeshiyada hubeysan oo weerar xalay saqdi dhex ku qaaday gurigiisa ee ku yaala magaalada Boorame. Shir jaraa'id oo warbaahinta uga qabtay Boorame waxa uu ku sheegay in rag hubeysan ay rasaas ku fureen derbiga qaybo ka mid ah gurigiisa hayeeshee ay iska caabiyeen ciidamada ilaalada ka hayay guriga balse aan wax khasaaraha dhinaciisa ka soo gaarin. Waxa uu sheegay in ragga weerarka soo qaaday aan weli la garan hayeeshee laamaha amniga ay baaritaano ku hayaan arrintaasi kadibna ay soo gudbin doonaan markii la ogaado. Warbaahinta ayaa wax ka weydiisay dadka uu ku tuhmayo weerarkaasi waxaana uu sheegay in arrintaas ay daba socoto howlgallo ay maalmahan wadeen oo ku saabsan soo celinta guryaha danta guud isla markaana ay ka dambeeyeen dad diidan guryaha dowladda inay ka baxaan. Waxa uu sheegay in marnaba aysan joojin doonin shaqada ay bulshada u hayaan ee ah banaynta dhulka danta guud. maleeshiyaadkii gurigiisa weerarka ku soo qaadayna tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan. Yaasiin Cali Axmed Looye, Radio Wadaniyan TV.